Raggan Muslimiinta ah ee halkaasna waxaa la toogtay markii sawirka laga qaaday daqiiqado kadib. Sanadkan uu ahaa 1915. Waxay diideen in ay Muslimiin kale dagaal la galaan oo iska hor yimaadaan. Waana dagaalkii koowaad ee adduunka. Waxay ahaayeen Muslimiin Indian ah oo ka tirsanaa ciidamadii gumeysiga Ingiriiska ee dalka Hindiya gumeysanayay. Wuxuu Ingiriisku keenay Singapore si ay uga qayb galaan duulaan lagu qaadayo dowladdii Islaamiga ahaa ee Cusbaaniyiinta. Iyagu ma ogeyn in dagaal loo qaadi doono dalka Muslimiin ah. laakiin si maanta loo sheegay in la dagaalamay Muslimiin kale ay amartido sameeyeen oo ay diideen. Kadib waxaa loo soo kala dhigay laba doorasho in geeriyoodaan oo la dilo ama ay qaataan amarka oo dagaalkaas kale oo Muslimiintana ay la dagaalamaan. laakiin sida caadada ah intii badneed ayaa qaadatay in ay noolaadaan oo dagaalka la galaan Muslimiinta kale. laakiin iyadoo ka mid ah oo ay sawir ku jirta ayaa diiday in ay la dagaalamaan Muslimiinta kale oo taasna ka xigaan geeri. waxayna sidoo kale u sheegeen janaalkii ciidamada haystay wax walba xad ay leeyeen xadkaas oo aan dhaafin. anagana xadkaygu waxa weeye inaan Muslimiin kala dagaalamin midaasna waxaan ka xignaa geeri. kadib markii ay saas ku dhaheen ciidamadii gumeysiga iyagana sidii caadadooda ahayd waxay sameeyeen in dhammaantood ay ku joogtaan halkaas isla maalintaas. waa taas Muslimiinta dhabta ah